السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومعلنمو جمعة قلبنمو وناكسيمة لنا هاي العادنا waxay sidoo kale sirliiq halkan aan ku sugnahay waa deegaanka Obar Khadle dooxii Obar Khadle oo isla markaana bariish weyn sanado ina dhaafay la dhigay bariishkan ka shaqeey doona faa'iido u leeyahay iyo dhibtii aad ka u badnayd bulshada u kala gudubto gobolada ay la kulmi jirtay markaan bariishkan oo leeyahay haddii video ku soo gaaro adnagu cusub tahay subscribe saar like na saar aad baad maasantahay bariishkan si aad u ogtihiin ba waxa uu run ahaantii kala xiri jiray bulshada ku dhaqan aba u kala gudubta gobolada isla markaana maanta qarya qar u kala xiri jiray bariishka wada aragtaa wata baawarto si xaraga leh hadda uga talaabayso run ahaantii bariishkan markaan taariikhdiisa hore aan ku noqono inta bariishkan la sameeyay bariishkan wuxuu ahaa dooxan weyn ee Obar Khadle inta bariishka loo sameeyo run ahaantii wuxuu ahaa mid marka bulshada u kala gudubto gobolada xira oo kala xira halkaas ku kala xira waxa ku dhaawacmay ama ku geeriyooday dhibaatooyin waxa ku geeriyooday dad badan isla markaana dhaawac iyo dhimasho lagu soo qaaday markii bariishkan la sameeyay run ahaantii waxa la qabtay faa'iidooyin fara badan isla markaana la oran karo bariishkan waa lagu guuleystay wada aragtaan bariishkan waa aragtaan run ahaantii dadkii iyo baabuurtuba si wanaagsan bay marka uga talaabayaan hadda waxa la oran karaa bariishku waxa la joogaa faa'iidadii ugu wanaagsaneyd raantii السلام عليكم السلام بالكور باريشكن iyo intaan bariishkan la sameeyay labada faa'iido ama labada farqiyo u dhaxeeya intaan bariishka sameeyay tood garanaysa in adeero meesha wada joognaa magaalada watay gowrade intii la sameeyayna dee wada socotaa go'du soo marayso iyo intaasoo gaadiid ba mara Soomaaliland inta ka dhaxayto fahmayso ma intaasoo gaari wada marsa faa'iido soo saa marka waxaan ku dhigay nimanka baabuurta si xaraga leh socdaan waa aragtay Soomaa wala socnaa wallahi fahmayso ma intaasoo gaari ay ka eegto maalintii waa bariish adag maskaxda dawladda ku baxday gowrade yimidahay tii labada ka noqotaba soo dhee marka bariishka faa'iido waan faahfaahsanay wixii kale ay afkaranada bariishka waxa dul maraya 20 tan 50 tan daadu baabuur xamuulkooga aad u badan yahay culeyskooga aad u badan baa dul maraya hadda waxay maraya baabuurtu aniga dul maraysa bariishka hoostiisii baan joogaa markaas asirteed wal arkaysa guuxa ama qabta gaariga marka bariishka runaantii wuxuu noqday badbaadiyaha bulsho badan oo marka daadku qaadi lahaa ta kale labaad daadku marka uu na dhaafo runaantii waxa meesha ku soo heli jirtay ciida taasoo dhibaato weyn ku hayd halkan aad arkaysaan waxaan ka duubnay video waa bariga aan bariishka la dhisin marka bulshada u kala gudubta gobolada aad bay ugu dhibanaayeen hadii uu daadku soo maro meesha marka wuxuu ku reebi jiray ciidaas oo dhibi jirtay gaarigu markuu ka soo talaabayo hadda gaari weyn baa ku jira meeshan saas darteed dhalinyarta ku dhaqan deegaanka Obar Khadle run ahaantii gacan weyn bay ka geysan jireen si ay markaa uga saaraan gaariga gaadiidka markaa dooxa ku dhiban run ahaantii markaa waxa la soo oran karaa dhib weyn ayuu dooxa ku hayay